ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kula kulmay magaalada New York ee dalka Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda isutaga Imaaraadka Carabta al-Sheekh Cabdullaahi bin Zaayid Al Nahyan ka oo ay ka wada hadleen arrimaha labada dal xiriirkoodii. ra-iisul wasaare khayre ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay war kooban uu ku sheegayo in wasiirka uu kala hadlay arrinta ugu muhiimsan ee ah midda hadda taagan ee khaliijka khilaafaadka ka dhex xalowsan iyo sidoo kale mowqifka dowladda Soomaaliya ay taagan tahay. khayre ayaa waxa uu shaaca uu ka qaaday in loo baahan yahay labada dowladood oo Soomaaliya iyo sidoo kale Imaaraadka ay ka wada shaqeeyaan sidii xal loo heli lahaa. waxuu sidoo kale uu soo hadal qaaday in ay wada falanqeeyeen labada mas-uulba arrinta maamul goboleedyada qaarkood ay isku barbartaageen isbahaysiga Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ay xiriirka ugu jireen dowladda wadankaasi Qatar. ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu yiri labada dal ayaa waxa ay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo xalin lahaa waxa hadda taagan oo ula jeeday khilaafka iyo sidoo kale mugdiga kala soo dhexgalay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo iyagu ka baxay mowqifka dowladda Soomaaliya ee dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay wadamada khaliijka muranka ka dhex xaloosan. qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ayaa iyagu waxa ay u weecdeen dhinaca iyo dowladda Sacuudiga isbahaysiga ay ugu jireen xiriirka dowladda wadankaasi Qatar.